السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك سجوتان وحواي وأنا بصور من اللبات يمرسد حد مرة لبا وحلي عن جلس عتين هذا يا أخوة إن صورينا يوتيوب كنا channel كان هاي ولك يغالية ولك يا ما أنت من الدهك عما ونفخية لا قردي ما كان حاجة فيه ما كان حاجة فيه فهمني ما كان عنده عما ونفخين هيو هنيكو حكوضة عما ونفخية شكله هذا الوصف سلبي هذا الوصف سلبي خلاص يا اوكي ما انتو حوا شكلنا وحوا دورد معهن وير معها وحوا كلية تتابشوا وحوا تتابعنا ميلاد بوتيو او مهم تتابعنا خرين لا تتمنى لكن هدا تتابعنا ان شاء الله وحوا يوجد كنا كواد وما حسبت ضد كنا علمي له لو دبر جريا معناها لو بابينيا وددك علميga leh aqoonta leh waa su'aalaha badan yihiin laakiin hal oo taweena step by step oo taweena anoo macnaha fiirinayna wixii u dambeeyay dhacay waxa jira dad badan aad iyo aad u fara badan oo cilmiga boqolkiiba u yaqaanay dalka Soomaaliya inay wax u qabtaan cilmigooda soo barteen oo soo afjaray haye adiga cilmiga taqaan على هذا ذاك الدكتور soo afjaraya ma ka dhehaysid xaqooda dadka cilmiga leh Soomaali oo cilmi badan leh way buuxaan macnaha ma ahan buuxaan oo la target gareynay dadka oo la target gareynayo maxay suubanayaan maxay qabanayaan lagu target gareynayo su'aasha taas weey lagu target like معناها لا soo saarayo wuxuu ma target waxa qofkaasi waxa calam saadiga amal loo exbasaran falankeeda la qabto waa loo dilaa calaamad waa ku ka target calaamad basaaran sababta calaamad saaran shada saaran shashada so qofku sababta u saartaa wuxuu yahay taas waa su'aashaasi muhiimada ah ma gartay qof walbo oo nuuxsanayo oo horumarka Soomaaliya ka shaqeynayo calaamad baa saaran ma gartay calaamad baa saaran so sababta u saaran tahay waxa weeye horumarka Soomaaliya baa la rabin saada u fiirsid waxa weeye mid labaadna waxa waaye cabsi gali dadka kale to oo maxaa ku dhada sheegeen in ka shaqeynayo horumarkaas ama doonayo dhalinyarada doonayaan horumarka Soomaaliya ka shaqeynayo ka cabsi gali qofkaas madaxa excel saaray waa dilay qofka kale uu waa taasuubiyo qofkaas meesha u dambeysaba u dambeynaya waa baqaya kala u istaagiya ama galaad u istaagaysa sheekadaaseeto haddii u dambeyso dhimasho waaya ka walwalaya Soomaali ama horumarka Soomaali soo qofkii dib u laabanaya su'aashan labaad galana insha Allah mise mukula tahay Soomaalida in loo testamaato oo macnaha mar hore qorshaha Soomaaliya soo afjaro in loo macnaha la sameeyay mar hore qorshaha la sameeyay sida macnaha Soomaaliya ay si dib u soo kicin mar labaad wadooyinkii dib u soo kicin lahayd dhanna soo xiray laakiin haddana waxa u jaaniyo wadamadii ma hartay wadamadii dhan la haystay boqortooyada haystay dhan waa soo afjaray laakiin maxay ku xuntaa mid qashada wax ku xumaatay wadankiiba oo wax yar mudaharaad ka dhaca inuu dhulka galay hada carabihi dhulka galay waxa kamid ah Yemen waxa kamid ah Libya waxa kamid ah wadamo kamid ah Suuriya kamid tahay oo loo tastay Iraq waa ku jirta waxyaalahaas dan aad si u fiirisid waxay ahaayeen politics ina kala maray politics laakiin macnaha sababta waxa waaye dadka oo Mareykan baa awoodahay ma garatay gacmaha Mareykan baa ku dhigay wada Mareykan Iraq ahaato waxa kale ay sheegeen dadka waxa waaye waxa kale Libya ha ahaato so gacanti kula jiraan so qofkaas upon just dadka chestka aqaano upon waxa la dhahaa
فرس chess af Soomaali xalwa chess waxa waaye baasha loo maartay jirta ma ahan laakiin jar ma aha like chess waa a pawn kaasoo waxa waaye qortooy queen la pawn waxa leeyahay so pawn waaye dadkaasoo oo martooyada faraskaasoo so waxa weeye la daraale waaye wax suubi waaye so like a soldier amal waaye ma garatay so dadkaas ay madaxtooyada ama boqorooyinta ama madaxweynayaashaasayda oo dhinaca carabta ah waxa waaye sheeko cusub ay bilaabeen waxa la dhahay anaka sheekada noo keenaysa sababta u nooshahay iyo sababta madaxa u saaran tahay ama boqornimada intaas sano haysatid ama oo president intaas sano haysatid waa anaka okay dadkan ku dirayna saasi subeen kibay ku direen waa la kiciyay ya aalada waxa madax kulligood waa okay Soomaalida wadooyinka badan hadda laga soo xiray wadada u furan markaas ana hal wada bisaan u furan waxa waaye waana hada qabiilka darna hada wadada carabtiyo dhamaatay carabtina dad lagu soo jeesta ma laakiin marka dhehaysa qabiilka hala jaram xaka wada ina noo jirto laakiin aad dhehaysa ma qabiilka dadaan hawi ma garatay qabiilka dadaan hawi waxaana ka oo ruwaaye qabiilka la afgooynayo ama la afjarayo ani ma taageeri qofka tahay waa ka soo maahan waxaan ka wadaa maaha saa u haashay saasa tilmo ina loo jiray qabiilka macnaha otore in la qariyo waa khamiiska qabiilka dhan waan dhaftur dadku kale sababta anta see loo qarinaya marka qurbaha jirto maartay warina hebel baa ma dharaa bas oniyo war Soomaali baa ahay keen dharaa shay sababta keenta maxaa wataasay keen dharaa ma iyo inta util bal ii sheeg sababta ka bal reer Djiboutiano reer Soomaaliyo ma ka taabana war Soomaali weyn baa Soomaali weyn ma wax kala dhaxan okay ma nin dhahay ruuqay baa reer mudug baa nin dhahay maartay nin maartay nin reer Ismaaciil baa ahay way jiraan bas ma laakiin waa dhan wax jiraan laakiin ha jiraan laakiin wix ma muuqdo laakiin Soomaaliya wix ma muuqdaan Soomaaliya wix ma muuqdaan waxa ka dambeeya marka fiiri Soomaalida dhulka waxa biinayo wax kale ma aha reer qurba joog maartay ama ka dambeeyo Soomaaliya waxa biinayo noo jilcitaas ya okay waxa waaye lacagtan faraha badan la diraayo hadar nin baa wuxuu raadinayaa suldaan ama ism raadinayo ama ugaas raadinayo soo ku raadinayaa falkeeda de asoo dibada joogo wuxuu dhahay aniga reer kul casu diray reekaas ku bilaw sabaasha anu helo ko ama waxa dhici ka dhextaa laga yaabaa dhul yar isku qabsaday dhulkaas ninka lahaa inuu maqan yahay oo dhahayo nin dhulkaas waa lagu haystaayo nin dadkii ugu haysto soo abiya soo baabaaye soo dilaha ama wuxuu sameeyaa oo arinta laga leexdo waxa asna ogaado waxa soo dhan waa ka maqan tahay ali say wallahi taagtay ma say wallahi kaliya ma ahan laakiin ani nafahanteeda markaan wax suubinayo muhiimadeedu waxa weeye niyaho meesha u socono waa aakhire falaka daa qabta aakhire xagee taaganahay ما فهمتي تاس على كل صعدة مقتى مسكحتي تاس كل صعدة ما كان واحد قبله يو صعدة أو قبله وجديدة الله يا حي مال أكبد بالي كرمية هي وآخره ما كان سوي استاجروا بنك سوي استاجروا له ها صادقوا كاسي ولا حسم ولا قف كاسي تباتو قف كاس با درتي قف كاس با نفط الجوي تاس كيف فكري يعني ما حاول أقدر أنا أقدر كلام مارتي وهذا واحد سكف كريسة لكن واحد بيقول صوتك كيف كده واحد جرا أوجعني واحد درك كجرا أنا صعاني صح لكن إن أنا قال ما عندك وحيسة نكمل ما درنا كنا ما نبي مري كرو لكن هتر جمعها الشيء على سعره هتر بدك التركي علم بدل ما نستبرت وحبي قواتي لكن عربها النزود والأردايو معكو قطين والعربها مرة صوت عربها أنا كعرب حمق أنا ليه ما شكلت أنا كنت أنا ما شكلت أني صاصة تاسبك فكر ميا مايا تاسبك فكر يا تاسبك فكر إيه يا ميا أنا مين يفتي أنا على الصومالي وعلى بس الصومالي ذو وحيسان أوبسيشن وحكوا هيستان أنا كعرب بنا هيجي عرب بكسر أنا نجيران باه يا ور
maxay ahayd كيف حالك يا أخي يا أختي يا وريا سومالي باتيهين ها مسلمين سوبر مسلمين وانا هي عربت دنا عربت وحواي عرب ليج وكجرنا ما قربت تاس وكجرنا بس انا كعرب من يساعد او فيرينو ادا ما اكو استا اكو اساس هي حدا المارت عرب بان احنا دلهن هل قبيل وعرب شكتا جرا كو قبيلك الاوروميا مش نيجيريان واي اقصد ماشي باش هذا يا باقي ماشي هذا هيك هيك نيجيريان يحاول يا كياتي اورومو على كل حال انا كصومالي انا اورومنا مني ما قربت نيجيريا مني عربنا مني باي هداي سؤال بك ودي ما قربت اي waxaan ku dhahay Soomaaliya qabiilka hadii la dhawargooyo ma la baabi'iyo Soomaaliya toos حتى قبل وانا حاطري ما سؤال waxaan garanayaa ku awoor kala ah in wadanka ka buuxaan oo awoor kala ah ana waa kala maxay oo qabiil daba ordaya قبيل دب أرداي فهم حاجة فورسة ما بصير ولا إليه ما ترى مجد دلع وفهم مجد خلت يصير قدر ما سوي أنا واحد أكيد فورسة ولا قبصني أنا أنت اسمك الله أنا واحد لجنة متقالة يعني قبيل كلا باب إنا ما في عنه سئل في عنه سنم في عنه قبيل خوف كات هاي أباها وحي هاي حاجة سي حاجة مالك إماتوا إسنا الله ذا مال أكسو جدا ما قرتي تاسيتنا على باب ما في عنه أو قفك كلا تو أو قال هذا عمل I'm American I'm Somali I'm this I'm that تاس أنا ما كهالي تاس أنا مرب يعني Somali ذا خوفك وحي هاي ساس بالسكو عاوية ساس بالسكو قرتا ما قرتي لكن الدتك كانت الله يسيو قبيلها كانت الله يسيو كاف بابي تاس هالبابي ديار بواحد أجي قبيل دن هالأفجوي تاس ميجي يعني حتى فالس أو فالو قشاس ساس فالو قش فالس كوكر فال بس ساس قشاس أوفسد أكو جدا أوفسد على وضي وانيجا ما تاج عنك تاج حبيت أنا معتي قبل هلا يجرو وشكله 4.5 بس هذا ممكن ما 5 هلا جاك وضع شكله ما أنا هذا 4.5 أنا هلا ترده واو هبل قرية ها ديارة واحد أصلا تطلع أنا يرك عليه وين قاعدين هذا ضد الدار ممكن لا يستاك ديتها يعني جو هذا ليس هذا دوترين هذاك يكون يسوى وانا فيره اللي فهمي أنا مش هقص عضو إلى فهمت تواي هذا هو مقلوس سيف عن إيد جيس ده إيد جيس أي والله بلعك فرح أقول يا مثلا يعني قبيلك دنيا وناكسن يلا تتري دلعهم oo dadka wax u geysanayo 4.5 kaasete iyo waxyaalaha aseeto oo dadka kala baagi sheeg kala fiiqsan ana ka fiican wallahi billahi waa yartahay waa badanahay waa taaseeto waxa waa isku laab hal jibi hal taasoo la jira magad taasoo la jira magad hadda halkayga ma ku galay si fiican ku okay dalkeena waxa lagu qiyaasaa muslimiintu joogta dalkeena sida sunniga ah waa 99% لو قاسع ما وقتها تاسنا معناها وير لو او لو بير دولكنا wax kale oo dima kala haye hasu tagal ma noqonayso akinaama bilaa tawash ina waxa ujeedka waxa waaye dal kaliya sunniga way yihiin dalka Soomaaliya waxa lagu qasay 99% hal percentage waxa waaye laga yaabaa waa kuwa qota haye halkaas miyaa loo tashtay waxaan dadka dilaayo boqolkiiba hal waa wax dadka dilaa boqolka halkaas la soo qaaday la soo ururiyay oo maskaxda laga soo xaday waa dadka baabilaamta ya looma shirxin diintii eweeryar waxay joogaan tuulo aan baadiya la soo qaaday ciyalkaas waxba lagu akhriyay muqoonta inaad ku cafina markaas nin waa soo dhigay isku soo yaqay haduu maado cunug yara hay saswaay hay هذا أقوله العنق شيء توجر واي ما قال هذه صوماليا waxay soo martay Italian English Djibouti Francis ma garatay Soomaaliya hada wax la qaban karo oo gacan lagu qaban karo ya marwala la qaban lahaa sidii West African iyo aan noqon lahayn maxaa kamid ah taqaana West African si hada u fiirisid
luqadooda ugu horeeyo ama official language-kooda dadka guumaysto waa luqadooda مثلا صح Nigeriaanka iyo kuwa oo baakisha West Africaanka iyo West Africaanka badankooda Francis baa guumaystay bonjour ay ku hayaan ma garatay bonjour comme ça va se faire ay ku hayaan ma garatay si aad u fiirisid bay blasnay ma sha Allah fahmtay dadkaaseeto dadka guumaystay baa gacanta u hayo walaalaheena oo Djibouti fi dhinaca u fiirisid afkee ku hadla حكوا عند فرنسي الصومال أنا ما أدري لكن الوضع الصومالي لا ها صومالي واي بس أنا ما أدري لغتك لغة ياش حالا برتو ما أدري يعني بس دتك قوميستي لايك صوماليا إيطاليان ياكو هالو والله هلا دي والله دكي ياكو هالو دكي فرق حيدة يا كده تاس بس كحدا سيت أول ببلو يا كده madaxtooyada oo maxay taaqaan qofku ahaa bas على ما no Italian no Arabic Somali hala bilaw hala qoro that's pride ma garanti soo anaka pride ugu jiro way taas Somali markaas hala bilaw qoritaankiisa waagaas ma garanti so taas waxa ku leeyahay waagaas la qaban waayo oo gacanta lagu qaban waayo Soomaaliya hadda taareeto oo aragti way suxul aragta Soomaali ama laga bedelo ama diin cusub la keeno wala keen kara laakiin hadda taaneeto in maxay ahayd Somaliland Hargeysa maxaa lahaa kaniisada laga dhisay ma dhacay booq qala ka dhacay laakiin shacabka taas maxay kula tahay maxay kula tahay taas maxay fikradda maxay ku gelinaysaa taas Soomaali Hargeysa bay بجرو لكن كنيسة هوري أدي أجرتي إلى الدنيا ما تنتهي الشيء استاس ما أوكي ساسو أوكي أقول ده مثلا صوت ده قبل نقول نيسو هذا سمال لها يواي رايت شيء قصة هكذا ما كان ليه شيء معناها هدي وحكاش لكن كيف كاش مكسوبة واجي سؤالي وتواجه مقتعي الله نحرسته مدحرين هوري سياد برا سلام سرع وهاجا الصومالي waxaa ka jiray dumarkeena inay madaxooda qaawnayeen dumarkeena way inay madaxooda qaawnayeen waxaa jiray suwaalka hadda dhahay ma aragtay qirista ma aragtay ya waaga suwaalka wuxuu ku ahaa suwaalada ugu badan ku ahaa abta intuba waaye hoos half waaye xaqada suwaalada suwaalka dadka way ogsan jiray wuxuu ku ahaa ma tahay hoos dhub hoos half صح stable laha hada waxa dhahay dhageysta Allah qowm bart qowmki hadda kaagaas istaan loo waaha ko dhankaas atare dumarkeen hadeer waba asturin alxamdulillah rabbil alamin qurbo Allah ya'lam laakiin dalkeena waxas ma jiraan okay ugu dambeyn ka dhalayna ahaan anaga maxaan la gudboon inaan sameeyno aan maxaan la gudboon aniga dhalayna ko waxa ka soconada kan dawra ka soconada dhalayna bahaye maxaa ku gudboon أنا هن معناها وجود بنتي مع رأي أسجين الهند رأي هن معناها هذا حكى لي سموه مين كاس موضوع عاد ماضي كاس هذا ماضي وجود بنتي معناها سو قاري وجود بنتي على سو قاري معناها مع أسجين الهند لا يستا قبيل كذا كعرنا وقاتهم واي بس خوف كانت أو قبيل كلاته أي سنين أوكي وحكى هذا المحاور معناتها دينيا iyo waxa ka hadlay maadiyan iyo waxa ka hadlay dhalinyarahan si leertu waxay sameeyaan lahayn anaha hore waxa u aragteen dalkeena waa socdaa waa dhamaanaya hadda Soomaaliya waxa lagu qeesaa boqolkiiba macnaha 20 milyan لا تشمي أنا وقصة لا تشمي ما ولي ما لا تشمي واحد أفريقيا تدخل إيران إن أنا حتى ولا جاوا تونسيا أيوة أنا قاردية إن أنا بنت حتى ولا جاوا لو ما كان كرو waxaan jeclaan lahaa aniga nastaxirna nish gudbiyo asku dubnaan marwalba aan sa shaqeyno yaan maqlin ninka dibadda joogo aan noon xariiso oo waxa awoodada dagaalka hanu bilaabin macnaha walaalaha qabo garaqo markaas ka bacdi wax ma ku soo baxayo waxa ku soo baxay nafaqada dhulka ku jira qeyraadka dhulka ku jira beeraha ku soo baxayo hadda fi hada waxa la Ethiopia wabigi waa xiratay marno sidaysa waqta ibka jira hadu dib jir leen wax dib jir leen waa dhirg leen xiliyaan insha Allah dalkana waa xus qabnaa
dadka joogna waa alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ha u barakeeyo waxaan dhihi lahaa we are the one inaan halma noqono hal qof yaan noqonin dad la kala qaybiyey yaan noqonin dad loo tastay horaan loo tastay ogahay laakiin haddeer iyo warkii u dambeeyaba kuwa had soo kacay jiilka had soo kacaya war gacanta qabta jiilka hore waa tegay kan had soo kacayaan ka haleeriya insha allah maxaa wadasan insha allah gacma u nafaqeeya shambo ma dhahayaan dhahay Shamo wata. ma dhahayaan dhahay mugtahay Shamo wata. suke ma dhahayaan dhahay mugtahay soo hadda taana waxaa dhahay mugtahay waa iga soo go'dan iyo waa xajin wey Okay. gacma u nafaqeeya like gareey share gareey ya comment gareey ra'yigiina fikradiina waa rabnaa ya Insha Allah. aku ka xagga baan ku gabeynayna insha Allah taala mawduucyal arabtin inaan ka hadalno diyaar baa u nahay commentigaas inta noo soo qora mise DM-ka Instagram-keena xaggan baa kusoo qorayaa nagu soo dira insha Allah taala khayr baan rajeynayaa magacaygu waa Saadiq kiigana sidoo kale waa Pakistani hoos wuxuu ku qoran waxa waaye magaceena oo Instagram ku leenahay sidoo kaleba waa ku ka YouTube-keena waana kliksisaa wax walba ka rees insha Allah gabadha daaro waa insha Allah aniga wax ka hadlay waxa waaye waa wax la jiraa aniga ma ahan reer musigo manihin reer baqal reer music markaa dhihiis maxaa ka wadaa macnaha dadka musiga reaction ka bixiya aniga heesa ka bixiya heesaha reaction kama bixino sugsi badan oh dada abaaki sheegay heesa jeclaa maya ma badan dadka attack ku wadid targetan saaraya moogtahay may meeralaha walaalayaal ninkan iska cafiyo iska cafiyo waxaa ka hadlaa anaga dagaal dadkaysaha inaga daare waryaa waxaa subinaysa subiya idinka hol ii taalo waa taaganaya idinka إن شاء الله. أنا شيخ ميه إنك أنا شيخ ما أدارتين إن قطب دقيقتين شيخ الآدة أما الشيخ مصطفى هذا شيخ مصطفى أنا اللي بتحسني شيخ مصطفى تحسنه أقسلام ما يعني كنياوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا كنياوي كلها وريا كنياوي إلا سواء الماهد ليش سواء وريا كبح ليش سواء ولا نو Okay, let go.